munaasabadan lagu dhaarinayo wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle ee dhawaan ay ansixiyeen mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Hirshabelle waxaana munaasabada ka soo qayb galay xildhibaano waxgarad siyaasiyiin haween qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo Cismaan Bare Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle madaxweynaha wuxuu akhriyay yani khudbad aad cajiib ah marka dad inta la magacaabay wasiir la magacaabay iska sii daay yani shaqaysana ma noqon doontaan wasiirada aad maasantiin hambalya ajin leenahay waa idin daba joognaa waa idin garab taaganahay waa idin yani hor soconaa waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo wasiirada cusub inaan idhaahdo ilaahay idin fududeeyo mas-uuliyad culusaa maaragtay alla idin magacaabay insha allah haddii la raalli ka noqdo annaguna waan idinla shaqaynaynaa mas-uuliyadaad qaadeenna waa mid naga wada dhexayso ilaahay noo fududeeyan len insha allah haddii la raalli ka noqdo barnaamijka aadka u wanaaga badan ee madaxweynuhu halkan ka jeediyey furuhu naga raba insha allah haddii la raalli ka noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdilaahi Cosoble ayaa munaasabada ka jeediyay waxqabadka laga filayo xukuumadda cusub ee Hirshabelle 4 sano ee soo socota barnaamijka xukuumadda Hirshabelle 2017 ilaa 2020 mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh sida aad la socotaan ujeedada ka dambaysa dhismaha xukuumadda waa dejinta siyaasadda hagi doonta dowlad goboleedka Hirshabelle iyo fulinta qorshayaasha kala duwan ee lagu horumarinayo deegaanka sidoo kalena xukuumaddan waxay wax ka qaban doontaa howlaha mudnaanta u leh shacabka Hirshabelle haddaan idin dul maro xukuumaddu waxay xoog saari doontaa sugidda amniga dib u heshiisiinta horumarinta adeegyada bulshada horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta dowlad wanaagga horumarinta deegaanada muddo gaaban gudaheed waa inaan deegaankeena kaga soo saarno deegaan uu muwaadin kasta ee wanaagsan ku noolaan karo sidoo kale madaxweyne Cali Cabdilaahi Cosoble ayaa golaha wasiirada Hirshabelle kula dardaarmay in ay wax qabad muuqda la yimaadaan maadaama Hirshabelle ay ka jiraan abaaro iyo xaalado adag waxaan u baahanahay midnimo karti inaan la imaano aan isbedel dhab ah oo Soomaaliya inteeda kale aysan gaarin aan kula tilaabsan karno inaan la imaano loo baahan yahay dekedihii oo aan furano aerobooradi oo aan ka shaqaysiino wadada laamiga sidaan u dayactir lahayn aan u wada guntano ammaankeena oo aan sugno wax soo saar oo aan u soo jeesano hantida ummadda oo aan ilaalino kana dhowrsano oo aan cadaalad ugu shaqeyno Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar